السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي channel ka cusub tahay magacayga waa Baaruud Cabdiraxmaan. Soo dhawaada oo ku soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan. Intaanu guda galin barnaamijkeena waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo dhammaan qof kasta oo go'ba channel-kan cilmi faafiye u huray oo siiyay subscribe, comment, share iyo like ba. aad iyo aad baad mahadsantiin. Haye ka waran adiga subscribe ma siisay channel-ka wali hadda si subscribe gambarka yarna riix si aad u ogaatid marka aan casharada iyo cilmiyada kala duwan ee faa'iidada leh aan soo dhigo channel-ka. waadna ku mahadsantiin xaqiiqdii taageeradiina. Okay, barnaamijkeena aynu iska bilaabano. waxa maanta aan doonayo inaan idin faa'iideeyo oo aan idin la wadaago waa kelimado dareen iyo xikmad leh oo ku saabsan saaxiibtinimada. waxayna inoogu bilaabmayaan sidan: saaxiibtinimada dhabta ah waxaa laba laabmaa farxadda oo kaliya waxaa kala qaybisa xabaasha. marmarka qaar saaxiibkaaga dhabta ah inuu kula joogo waxay kuu noqotaa daawo aad u baahnayd. saaxiibtinimadu maaha wax iskuulka aad ka baranaysid, laakiin haddii aadan aqoon micnaha ay leedahay saaxiibtinimadu, xaqiiqdii waxumaad baran. saaxiibtinimada dhabta ah waa inay is-aaminaan midba mid kale, waa inay is-caawiyaan midba mid kale, iyo sidoo kale waa inay is-jeclaadaan midba midka kale. muhiim maaha inaad heshid milyan saaxiibo, ee waxaa muhiim ah inaad heshid hal saaxiib oo kula jira marka ay milyan kaas horjeestaan. marka aad meel gaadhid oo aad guulaysatid, saaxiibadaada waxay ogaanayaan qofka aad tahay, balse marka aad guuldareysatid oo aad niyad jabtid, waxaad ogaan doontaa qofka saaxiibkaaga dhabta ah. saaxiibadaada dhabta ah waa kuwa marka aad murugaysan tahay indhahaaga ka garta. dad badan noloshaada way ku soo biiraan wayna ka baxaan, laakiin saaxiibtinimada dhabta ah qalbigaaga ayay raad ku reebtaa. saaxiibtinimada micnaheeda waa isfahan ee maaha heshiis la wada galo. saaxiibtinimada micnaheedu waa iscafin ee maaha in la is-ilaawo. saaxiibtinimada xooggan uma baahna in maalin kasta la wada hadlo, iyo sidoo kale umana baahna in maalin kasta la is arko, maadaama xiriirku uu ku nool yahay qalbiga gudihiisa. halkaas waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkeeni maanta ee ahaa kelimado dareen iyo xikmad leh oo ku saabsan saaxiibtinimada. Okay, waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan insha Allah. haddii aad jeceshiin inaan idin soo diyaariyo barnaamijyo kale oo xiiso leh kuna saabsan nolosha saaxiibtinimada, xagga hoose ee commentiga ayaad insha Allah kusoo qori doontaan. soo dhawaada kuna soo bir channelkeena cilmi faafiye, subscribe-na si iyo like ba. mahad sanadiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.